runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu soo booqano xabsiga guud ee Muqdisho oo aan indhaheena ku soo aragnay sida loo dhisay iyo heerka uu taagan yahay oo heer caalami ah marka la eego maxbuuska Soomaaliyeed ama maxbuuska kale la xiro xeer ilaalinta iyo ciidanka booliska iyo hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda ay khusaysaa soo qabtaan waxay nagu waajibay dawlad ahaan in xuquuqdiisa la dhowro xabsigu noqdo dhaqan celin iyo edbin uu tababar ku helo uu helo fursad asaasiyaadka xuquuqeed uu leeyahay ay u sugnaadaan waxaan soo aragnay indhaheena ku aragnay qolalka chiefka kitchenka qolalka kale ee loogu talagalay inay ku nastaan u soo baxaan markay cadaalad qaadanayaan maamulka xabsiga garsoorka iyo doorka iyo xeer ilaalinta doorka ay ku leeyihiin iyo dhamaan bahda cadaaladduba marka waa xabsi heerkiisu uu runtii aad u sareeyo noqon kara mid lagaga daydo dhamaan halbeeg u noqda xabsiyada kale ee dalka aynu ka hirgelinayno wuxuu nafisin doonaa culayska saaran xabsiyada kale ee magaalada caasimadda ku yaala sida xabsiga dhexe waxa uu nafisin doonaa shaqadii sanadkani waxa weeyaan sanadkii fulinta 2019 xukuumadda nabad iyo nolol waxay ku shaqeynaysaa halbeegyo iyo ballan ay la galeen wasiiradu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre halbeegyadaas maxaa ka fulay maxaan ka fulin waa wax lagu xisaabtamayo maanta waxa uu inoo noqonayaa halbeeg weyn oo fulintiisii ay hirgashay in xabsigani sidaanu shirkii gaarka oo wada yeelanay afartayadu taliyaha wasiirka xeraalyaha guud iyo aniga ugu dambeyn 22ka bisha inuu noqdo xabsi shaqeynaya oo shaqadii loogu talagalay dhamaan ay dhameystiran tahay haddii taliyooyinta ka horeysa uu fuliyo waa haldheeri iyo dadaal badan oo taliyaha iyo ciidanka asluubta ay sameeyeen waxa ay wax weyn ka taraysaa magaaleyntii fudidii amniga fudidii xukunka iyo ismaamulka caasimadda iyo dalkaba dhamaan ahaan gaadiidkii baa iman doona shaqaale kala iman doona ciidankii asluubta iyo shaqaalihii la halmaalay baa iman doona qaraabadii maxaabiista imanaysa marka magaaleyntii iyo in maamulku fido ayay qayb weyn ka qaadanaysaa amniguna fudo waxa suurtageliyay waa dadaalka weyn ee labadii sanadood ee ay jirtay dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo hogaaminayo